madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa magacaabay guddiga maareynta deeqaha lacagta ee fatahaadaha magaalada Beledweyne iyo waliba deegaanada Hirshabelle. Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweyne Waare ayaa lagu magacaabay guddigan oo ka kooban 15 xubnood waxaana ay isugu jiraan ganacsatada Beledweyne iyo waliba mas'uuliyiin ka tirsan guddiga gurmadka maamulka Hirshabelle. waxaana uu madaxweynuhu u gurin leeyahay sidii markaasi ay u maareen lahaayeen deeqaha loogu talgalay dadka ku dhibaataysan magaalada Beledweyne isla markaana fatahaaduhu ay saameeyeen waxaana sidoo kale ay maareen doonaan deeqaha loogu talgalay dadka ku nool deegaanada Hirshabelle guud ahaan. magacyada guddigan ayaa waa xubnahan oo ay ka koobnaayeen 15 xubnood ayaa waxa ugu horeeyo Xaaji Cusmaan Dhagaxow oo ah gudoomiyaha ganacsatada, Maxamed Sabriye Nuur, Deerow Maxamed Xasan, Cumar Xasan Cumar, Ibraahim Xaaji Daahir Buraale, Cabdi Muumin Nuur, Xasan Cabdi Aadan, Cali Maxamed Caraale gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo asna ah gudoomiye ku-xigeenka. waxaana sidoo kale ka mid ah Cabdi Mahad Cabdullaahi Qorgaab wasiirka gargaarka, Maxamed Cabdiraxmaan Qayre wasiir ku-xigeenka dastuurka, Cabdullaahi Maxamed Cadow wasiirka madaxtooyada, Cabdixakiin Cali Nuur wasiirka dib u heshiisiinta, Maxamed Sheekh Cali wasiirka shaqada iyo shaqaalaha, Maxamed Wabar Xasan wasiirka batroolka, Aadan Maxamed Muuse wasiirka ilaalinta bay'ada iyo waliba Nafiso Geed Sanatuur oo ah xafiiska ra'iisul wasaaraha ka socota. dhammaan xubnahan ayaa lagu sheegay wareegtada ka soo baxday madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare inay maareen doonaan gargaarka loogu talgalay dadka ku dhibaataysan deegaanada Hirshabelle gaar ahaan magaalada Beledweyne. ugu dambeyntii guddigan ayaa alla looga baryay in uu u fududeeyo shaqada loo idmaday ee la xiriirta maareynta deeqaha lacagta ee fatahaadaha loogu talgalay dadka deegaanada Hirshabelle. webiga Shabeelle ayaa fatahaad xoogan ku sameeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo deegaano kale oo ka tirsan Hirshabelle waxaana socda gurmad xoogan oo loo sameynayo dadkii uu saameeyay fatahaadaasi. waxaana sidoo kale jirtay warar maalmihii ugu dambeeyay soo baxay oo ahaa in markaasi la musuqmaasuqay deeqaha loogu talgalay dadka markaasi uu saameeyay fatahaada webiga.